بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. جزاه الله خيرا الشيخ عبد الرزاق. runtii qisaska fi suurati yuusuf waa qisas aad u cajab badan iimaanna uu qofku ka ziyaadsanayo ahlu iimaanka ah. sheekha runtii qisadii hadda uu sheegayay iyo dadka hiqada ilaahay subxaana wa tacaala qaar ay ku qabaan iyo iimaankoodu meeshuu gaarhsiisan yahay iyo inaynan allah subxaana wa tacaala ka quusanaynin baa qisadaasi waxay soo xusuusisay qiso magaaladeenna ka dhacday. qisadaas u fiirso magaaladeenna ka dhacday Seattle, Washington. qoyskay ku dhacdayna hadda way joogaan. runtii aad baan ula tacajubaa iimaanka qoyska iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala hawsha ay ku dambaysay. reerku muddo isqabeen, waxaan filayaa 10 iyo ziyaado sano ahayd. wax ilmo ah iyo wax uur ahna ilaahay subxaana wa tacaala ma siinin. wax badan bay sameeyeen oo waddankan wad aragtay ilmaha laysku beeraa la yidhaahdaa mar iyo lababa way sameeyeen, laakiin way u suuroobi weyday. kadib waxay sameeyeen markii dambe inay xajka aadaan, ilaahay la soo baryo. haddana waxaa la aaday meesha dadku adduunku dhakhaatiirta meelba ugu dambaysa. qofka Soomaaliga markuu xanuunsado waddan walba tago meel baa la yidhaah lagaga quusto. waxagee meeshaas jarmalkay aadeen. dadku way wada garanayaan jarmalkay aadeen. jarmalkiina waa lagu soo daweeyey, way soo noqdeen. qoyskii weli ilaahay wax markii ma siinin. muddo dheer haddii la wada noolaa reer isku fiicanna ay ahaayeen, waxay soo jeediyeen oo labada qof mid ka mida ka timid in ilaahay subxaana wa tacaala laysu faatixeeyo. hala kala faatixaystaa la yidhaahdaa, laysu duceeyo ee ilaahay risqigiisa iyo owlaadna la kala raadsado haddii iyaga ilaahay waxba siin waayo. labadaa walaal mid ka mida markuu qisadii soo jeediyey, midkii kale aad buu u murugooday. xaaskiisii uu jeclaa, wakhti dheerna la soo qaatay, xumaanna uusan ku ogayn. wuxuu yidhi arrintaas murugay ku noqotay, mana xumayn karo qofkii. awlaadda in la yeesho oo ilmo la dhalana waxay ka mid tahay waxyaabaha maqaasidda guurka ku jirta iyo waxyaabaha loo guursado. marka haddii muddo laga fikirayay wa ficlan haddii aan sii caddeeyo, gabadha ayaa soo jeedisay in la kala socdo. wiilkana arrintu way ku adkaatay. markii ay aragtay inay hawshu adag tahay, wiilkana meel adag ay marayso, yaa gabadhu waxay keligeed baa iska istikhaarotay, ilaahay la tashatay, go'aan keligeeday gaadhay. waxay ku tiri, bal u fiirsad hadalkaa, nin baad rabtaa inaad guursato kale, waxa aad doonina waa in ilmo ilaahay ku siiyo. soo ninkaagan hadda ku qaba ilaahay kaama siin kara ilmo adoon waxba samaynin? soo ma dhici karto inuu isagoo ilmo ilaahay kaa siiyo? gabadhii ninkeedii waa u timid, waxay tidhi arrintii waan ka tanaasulay, waana joojiyey. ninkaygaana tahay maanta iyo berriba insha allah. abshir, carabtu abshir bay yidhaahdaan. hawshii sidaasay gabadhii ku go'aansadeen. reerkii alxamdulillah waxna samayn mayno, isbitaal dambena tegi mayno, ilmana isku beeri mayno, meel uma kala soconno. ilaahayga subxaanahu wa tacaala qof kale iga siin lahaa, adiguba nin baa tahay, alla waa iga kaa siin karaa. ikhwaanii, waxaa aad u cajab badan. waxaa laga joogay go'aanka marka la qaatay, waan xusuustaa 2 wiig mise 3 wiig. gabadhii waa xanuunsatay, isbitaalkaa la geeyey, uur bay leedahay. allahu akbar, allahu akbar. gabadhii uur bay leedahay. waxay noqotay yacni arrin lagu cibro qaato. dadkii xaaladda ogaa oo dhan gabadhii uur bay leedahay. alxamdu lilaah
أوربيالتي بعد شيء ما شاء الله هذا أوربيالتي أوركلا بعد بلاد الله أكبر قصة سوحي كنا عظيم مقالدين وأهل إيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى وعدم اليأس وإن الله لك قوسا سبحانه وتعالى الله قادر على كل شيء وحول بأله وأوده هذي أمورك وأتكاته سيدي الشيخ الشيخ جزع يا أرجح يا أنت الآذي لهيد الله كعر سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحكمها إذا حزبه أمر صلاة بو اسكغا عرجه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بالله مركا صلاة برسولك دوم مرغودا أما أرني كو أدكاتا صلاة بو غليا همومتي يا دبكي وديني روحانيات يا جو كلو غليا isagoo wuxuu ka soo baxayaa ilaahay xamdigii umurtiisa uu kala degata marka ilaahay subhanahu wa ta'ala aan isku xirno sheekha ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo runtii muxaadaro aad u cajiib badan bay ahayd taabanaysa qof kasta oo muslim qof weyn iyo qof yarba inooguna sugan tahay cibro iyo faa'iido wixii ummadii hore ku badbaaday bay dadkan dambana ku badbaadayaan diintan kuma hagaagaysa la yiraahdaa ilaa dadkii hore waxay ku hagaagtay bay ku toosaysaa marka indagana wadada dadkii hore ilaahi subhanahu wa ta'ala ka baqi jir aan qaadano ilaahina subhanahu wa ta'ala inagu arsaaqo صبر يا عبسبة شيخنا إليه سبحانه وتعالى محاضرة ميزان الحسنات الله قلي إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خير بارك الله فيكم إن شاء الله